asalaamu calaykum waa mar kale iyo barnaamijkeena english business english series cashirkii labaad weyaan waxaana kaga hadlaynaa innovation and problem solving. Barnaamijkani waa barnaamij free oo taxane oo luuqada businesska loo isticmaalo englishka loo isticmaalo goobaha shaqada ayaad ku baranaysaa, waana free weyaan. Marka haddii aad jeceshahay inaad asigoo dhammaystiran oo resourceskiisa la socdo aad hesho, waxaad soo download garaysanaysaa applicationka Waxkabaro Academy, kadibna qaybta hoose ayaa u gudbaysaa free english lessons ayaa taabanaysaa, kadibna business english ayaa taabanaysaa. Marka kadib waxaa kuusoo baxayo wixii oo dhan ayaa kuusoo baxayo, codadkii iyo maxaa la dhahay kuwiisyadii wixii oo dhan ayaad ka shaqayn karaysaa. Alright, aan cashirkeen usoo laabana. Marka maanta waa ka duwanaan doonaa sidii cashirkii ka horeeyay aan u sameynay. Jumlada ayaan ku siinayaa. Markaan jumlada ku siiyo waxaa laga rabaa inaad micnaheeda qaybta commentiga kusoo qorto inta aanan kuu sharxin ka hor, si aan u tijaabino inta fahmayso iyo inta kale. Alright, jumlada ugu horeysa maanta. We need to think outside the box. We need to think outside the box. Micnaheeda sidaad u fahansan tahay qaybta commentiga kusoo qor marka hore. Good. Micnaheedu wax weeyaan, waxaan u baahannahay inaan u fikirno si ka duwan sida caadiga ah. Inaan u fikirno si ka duwan sida caadiga ah, ma si hal abuur ku dheehan yahay inaan u fikirno. To encourage creative thinking and innovative approach. Inaad dhiirigelisid qofka inuu creative noqdo, hal abuur noqdo ayaa loogu talagalay. Tusaale haddii aan sameyno, thinking outside the box is the only way we will solve this problem. Inaan si hal abuur leh aan u fikirno waa sida keliya aan problemkani hadda taagan aan ku xalin karno. Haddii aad applicationka soo dejisatay, codadkani videoga hoostiisa ayay ku yaalaan, waad dhagaysan doontaa insha Allah. Let's move on to the next ereyga kale aan ugu dubno. Ereyga kale ama phrase kale waxa weeyaan let's take a step back. Let's take a step back. Isku day inaad qaybta commentiga kusoo qortid micnaheeda intaanan ku sharxin. Good. Micnaheedu waxa weeyaan aan dib u eegno ama aan saakino oo aan dib u eegano wixii noo hagaaga iyo wixii noo qabsooma weeyaan. Waxa weeyaan aan dib u yara laabano si aan qiimeyn guud ugu sameyno xaaladda weeyaan. To suggest pausing and reviewing a situation or decision. Inaan pause isku sameyno ama aan isjoojino si aan decision ama situation and review and dib u qiimeyn aan ugu sameyno weeyaan. Tusaale, our marketing campaign didn't work. Let's take a step back and see why. Ololahayna iibgeynta ama marketingka wuu shaqayn waaye ama wuu fashilmay. Let's take a step back and see. Aan dib u fiirino, dib u eegis ama review aan ku sameyno si aan u ogaano wixii dhacay ama halka uu qaladka ka jiray. Alright, jumlada saddexaad ama ereyga saddexaad. Let's put our heads together. Qaybta commentiga kusoo qor micnaheeda. Good. Micnaheedu waxa weeyaan aan iskaashano, aan madaxa tuujino, aan collaboration sameyno weeyaan. Aan iskaashano, aan madaxa tuujino ama aan collaboration sameyno ama aan isla shaqeyno weeyaan. Is to suggest collaboration, brainstorming and sharing opinions. Inaan collaboration sameyno, maskax tuujin aan sameyno ama ra'yi aan isku biirino weeyaan. Tusaale, if we put our heads together, I know we can solve this. Haddii aan iskaashano, waxaan ogahay problemkani waan xalin karnaa. I know we can solve this. Haddii aan iskaashano, problemkani waan xalin karnaa. Alright, midka afraad. To play devil's advocate. Isku day inaad jumlada haddii micnaheeda aad hesho. Qaybta commentiga kusoo qora. To play devil's advocate. Micnaheedu waxa weeyaan inaan ciyaarno, hadda micnaheeda literalka ayaan kuu sheegaya, inaan ciyaarno talada uu soo jeediyey shaydaanka. Devil waa shaydaan weeyaan. Talada uu soo jeediyey ama waxa uu u advocate galay ama u ololeeyay shaydaanku aan qaadano weeyaan. Micnaheeda literalka waa saas weeyaan, laakiin micnaha dhabta sidaasi maahan. To play devil's advocate micnaheedu waxa weeyaan aan tijaabino fikir qaldan, aan ognahay fikirka inuu qaldan yahay ama aan saluugsanahay. Markaad aad saluugsan tahay, aad rabto haddana inaad tijaabiso ama aad jaanisiiso ayaa la isticmaalaa. Micnaheedu waxa weeyaan to consider opposing viewpoint when making a decision to test an idea. Ra'yiga aad aaminsan tahay ka duwan inaad jaanisiiso ayaa loogu talagalay. Tusaale, I think 3 videos per day is too much.
waxay la tahay 3 video in maalintii la upload garayo ama social media la soo geliyo way badan tahay, wax badan way too much weeyaan. But let's play devil's advocate and see if it's possible. balse aan jaanis siino, aan tijaabino, waxaa laga yaabaa inay suurtagal noqoto ama inay shaqeyso ayaa laga yaabaa. Alright, jumlada shanaad ayaan u gudbaynaa. We need to nip this in the bud. Isku day inaad ogaatid ama sharaxaad ka bixiso qaybta commentiga. We need to nip this in the bud. Micnaheedu waxa weeyaan inaan xididada u siibno intuusan barnaamijku uusan xadka ka bixin, ama inaan joojino, ama inaan problem taagan aan joojino ama aan ka hortagno weeyaan intuusan xaddaaf naqanin. Is to stop a problem at early stage before it becomes more serious. Ina problem aad joojiso xilli hore inta uusan xaaladdu aysan aad faraha uga bixin. Tusaale, students are coming to class late. We need to nip this in the bud. Ardadu galaaska ay ka soo daahaan. Waxaan u baahannahay inaan arrintani ka hortagno, aan joojino inta aysan faraha ka bixin. Waxaan filayaa inaad si fiican uga faa'iidaysatay. Applicationka fadlan soo download garayso oo codadkani si aad u dhageysatid. Waxaa kaloo applicationka ka helaysaa quiz ayaa kuugu diyaarsan. Isku day quizkani inaad ka shaqeyso oo casharkani fahankaysa tijaabinayo, kadibna natiijo ayuu ku siinayaa. haddii aad jeceshahay inaad safarkaaga luuqadda Englishka aad sare ugu qaadato, waxaan kugu casuumayaa Waxkabaro Academy oo ah platform aad luuqadda Englishka si wacan uga baran karayso. Isagana faahfaahintiisa qaybta commentiga ama descriptionka ayaad ka helaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi